waagii daraawiishta inta la duqeeyey oo laga golroonaaday sayidka iyo baaqigiisii ay galeen ama baaqigii soo hadhay andhehe ay galeen carro ogaadeen ayaa waa sida taariikhiyan lala socdo waa kii ingiriiska uu ka daba diray colkii kumanaanka ahaa ee rayidka la odhan jiray. colkaasi marka dhibaato badan bay geysteen oo geelal badan bay soo qaadeen oo dadkan ogaadeen kuwa ay lahaayeen. rag baa marka geelii kula soo noqday dhulkii ay ka duuleen. raggaa marka duulee faraha badan waxaa ku jiray oo ka mid ahaa rag isla daraawiishtii la jabiyey ka mid ahaabaa haddana duulaankii wadaadka ka daba baxay haddana raacay. markay ciidankaasi soo noqdeen qaarkood iyagoo geelal aada u badan wata ayaa Ismaaciil Mire ayaa wuxuu isku canaantay oo ka shalaayay raggaa inuusan raacin ayuu isku canaantay. waxay ka gaadhay sheekadii waagii ninkii la oran jiray cilmi boodheri oo kale harka galay hurdada way xuntay hahoy maxay seexshay bal inaan habaar qaba maxaa hodani weedaarshay tii oo kale isku calaacalayo. Ismaaciil wuxuu yidhi timir tooma joogtiyo bariis tooga loo kariyo caanaha taraar laga lesee toonin laga buuxshay intaan xoorka tiimbana hayeen tamashlaha u joogay niman baa intay 10 dhexeen soo tabacday geel tabtaan haatan ahay naagaha igala tiilroone tubtayay la mara reer tolkay ima tabiinayne. macnaha reer tolkay ima dhaqaalaynine raggii hore ee geela badan soo dhacayna waan ka hadhay hadda yaa i raacaya buu yidhi. col buu qalqaaliyey. col baa marka baxay maxaa yeele wuxuu arkay rag shalay farabadnaa oo meeshan kaga tegey oo iyagoo sacaabuhu buuxaana ogaadeen soo dhacay kusoo laabtay meeshii. col buu marka qalqaaliyey col baa baxay wardheer markay sii marayaan isagaaba abbaanduulo looga dhigay. intii marka aynan gudihii gelin buu marka gabay tiriyey uu maaragtay xagna ilaahay ku baryahaya inuusan duulaanka ku khasaarinin oo xoolo soo siiyo. dhanka kalena nimankii uu la socday uu ku gubaabinaya inay hadhow markay xoolaha soo dhacaan hashii geeraarshaha ay siiyaan maadaama abwaanka la socday colka maaweylinaya uu yahay. marka wuxuu yidhi geenyada ka soo lulay halkii gacal la-aaneede guntimihii shirshooraha ka hadhayaan u soo galaye aanguuraama caawaan tolkay gaas la soo wacay gahaydhkii wardheer iyo hashii gudurka loo quutay jibaaxeeda geediga hashaan gila ka soo raacay hashaan guri caskeedii tirshaya gamaa la ii diiday gunuunkeeda xoor kale hashay gocatay laabtaydu hashaan uurka uga soo gengimay 10 geed qaaqle gob cadaysah iyo dheen hashaan guranayee xaabay wax kastaba angooye hashaan labada gaws daalshay gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay gurgurshaaga awrka ah hashii galowga loo taabtay gorodhigaha haamaha hashaan garangarshee xooray raggii wada gamuuraa hashuu golongolee dhuubtay hashii kabaha gaarkooda sare dhaguxu googooyey guntigeeda maradii hashuu igu garoodhoobay guuriya boqoolaba hashuu galowgu eedaamay saalada gabowga ah hashaan gelindhow moodayey garufkeedu madhayey hashii laga gabaarayey galbeed iyo hashii loola kacay adari guudkeeda gurigii axmaarada hashii garangarshee dhaaftay faalkii galaydh iyo hashuu male ka geyfnaaday iyadoo hilaac galac yidhiya galowda soo raacday iyadoo daruuraha gabdhamay bila ku soo guurtay ragga gabalkii wuxuu moodayaa inaan la gaadhayne guulow allahayow adaa lagu galliintaaye garaadaysanoo layska daagaf iyo faankiiye inay taladu kugu gooni tahay gari kaskaabkiiye guulow alloo waa fogaa guriga caymeede oo kama gayoon karo colkiyo gacanta noo buuxi idinkuna halgeeraarshihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama googtee gacala ii siiya. waxaa qisadan iyo gabaygaba ka soo xigtay buugga Ismaaciil Mire gabyaagii halgamaaga ahaa ee uu qoray Axmed Faarax Cali Idaaja. waagii daraawiishta inta la duqeeyey oo laga golroonaaday sayidka iyo baaqigiisii ay galeen ama baaqigii soo hadhay andhehe ay galeen carro ogaadeen ayaa waa sida taariikhiyan lala socdo waa kii ingiriiska uu ka daba diray colkii kumanaanka ahaa ee rayidka la odhan jiray. colkaasi marka dhibaato badan bay geysteen oo geelal badan bay soo qaadeen oo dadkan ogaadeen kuwa ay lahaayeen. rag baa marka geelii kula soo noqday dhulkii ay ka duuleen. raggaa marka duulee faraha badan waxaa ku jiray oo ka mid ahaa rag isla daraawiishtii la jabiyey ka mid ahaabaa haddana duulaankii wadaadka ka daba baxay haddana raacay. markay ciidankaasi soo noqdeen qaarkood iyagoo geelal aada u badan wata ayaa Ismaaciil Mire ayaa wuxuu isku canaantay oo ka shalaayay raggaa inuusan raacin
ayuu isku canaantay. waxay ka gaadhay sheekadii waagii ninkii la oran jiray cilmi boodheri oo kale harka galay hurdada way xuntay hahoy maxay seexshay bal inaan habaar qaba maxaa hodani weedaarshay tii oo kale isku calaacalayo. Ismaaciil wuxuu yidhi timir tooma joogtiya bariis tooga loo kariyo caanaha taraar laga lisee toonin laga buuxshay intaan xoorka tiimbana hayeen tamashlaha u joogay niman baa intay toban dhexeen soo tabacday geel tabtaan haatan ahay naagaha igala tiilroone tubtayay la mara reer tolkay ima tabyinayne. macnaha reer tolkay ima dhaqaalaynine raggii hore ee geela badan soo dhacayna waan ka hadhay hadda yaa i raacaya buu yidhi. col buu qalqaaliyey, col baa marka baxay. maxaa yeele wuxuu arkay rag shalay farabadnaa oo meeshan kaga tegey oo iyagoo sacaabuhu buuxaana ogaadeen soo dhacay kusoo laabtay meeshii. col buu marka qalqaaliyey, col baa baxay. wardheer markay sii marayaan isagaaba abbaanduulo looga dhigay. intii marka aynan gudihii gelin buu marka gabay tiriyey uu maaragtay xagna ilaahay ku baryahaya inuusan duulaanka ku khasaarinin oo xoolo soo siiyo. dhanka kalena nimankii uu la socday uu ku gubaabinaya inay hadhow markay xoolaha soo dhacaan hashii geeraarshaha ay siiyaan maadaama abwaanka la socday colka maaweylinaya uu yahay. marka wuxuu yidhi geenyada ka soo lulay halkii gacal la-aaneede guntimihii shirshooraha ka hadhayaan u soo galaye aanguuraama caawaan tolkay gaas la soo wacay. gahaydhkii wardheer iyo hashii gudurka loo quustay gahaydhkii wardheer iyo hashii gudurka loo quutay jibaaxeeda geediga hashaan gila ka soo raacay hashaan guri caskeedii tirshaya gamaa la ii diiday gunuunkeeda xoor kale hashay gocatay laabtaydu hashaan uurka uga soo gengimay 10 geed qaaqle gob cadaysah iyo dheen hashaan gurungurshee xaabtay gob cadaysah iyo dheen hashaan guranayee xaabay wax kastaba aan gooyee hashaan labada gaws daalshay gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay gurgurshaaga awrka leh hashii galowga loo taabtay gurgurshaaga awrka ah hashii galowga loo taabtay gurgurshaaga awrka ah hashii galowga loo taabtay gorodhigaha haamaha hashaan garangarshee xooray raggii wada gamuuraa hashuu golongolee dhuubtay hashii kabaha gaarkooda sare dhaguxu googooyey guntigeeda maradii hashuu igu garoodhoobay guuriya boqoolaba hashuu galowgu eedaamay saalada gabowga ah hashaan gelin dhow moodayey gorofkeedu madhayeey hashii laga gabaarayey gorofkeedu madhayeey hashii laga gabaarayey galbeed iyo hashii loola kacay adari guudkeeda gurigii axmaarada hashii garangarshee dhaaftay faalkii galaydh iyo hashuu male ka geyfnaaday iyadoo hilaac galac yidhiya galowda soo raacday iyadoo daruuraha gabdhamay bila ku soo guurtay ragga gabalkii wuxuu moodayaa inaan la gaadhayne guulow allahayow adaa lagu galliintaaye garaadaysanoo layska daagaf iyo faankiiye inay taladu kugu gooni tahay gari kaskaabkiiye guulow alloo waa fogaa guriga caymeede oo kama gayoon karo colkiyo gacanta noo buuxi idinkuna